mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada Berbera iyo kuwa gobolka Saaxil ayaa saaka waxay kormeer ku tageen wadada 2 kiiloomitir ee tagta goobaha ay ku yaalaan bakhaarada iyo shirkadaha waaweyn ee galbeedka gobolka Saaxil. Wadadani ayaa dhismeeda waxa iska kaashaday dowladda hoose ee degmada Berbera iyo ganacsatada reer Berbera. Ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Berbera Cabdikariin Aadan Cadde iyo qaar kamid ah ganacsatada iyagu wadadani ka qayb qaadan ayaa dhismaheeda waxayna ka warameen dhismaha wadadani laamiga iyo halku marayo waxa maanta farxad inoo ah runtii inagu ku jirna maalintii labaad ee Ramadaanka inaynu kormeer ku soo marno wadadii Omar Road aynu dhawaan dhagax dhignay oo asfasha ahayd 2 kiiloomitirna ahayd runtii oo dhamaad ku dhow waxa kale oo runtii xusid mudan inaynu halkan ka xusno ganacsatadii kala duwaneed ee gacanta ka geystay oo runtii ilaa 8 ganacsato gaadhayay oo qaarkood halkan la joogan wadadana waa wadadii ugu horeysay ee dawladda hoose ee magaalada Berbera iyo ganacsatada ee magaalada degan ee waaweyn ay iska kaashadaan taasina waxay muujinaysaa san horeba u sheegnay kalsoonida xoogan ee ka dhaxaysa dadweynaha reer Berbera iyo ganacsatada iyo dawladda hoose insha Allah waxaan rajaynaynaa mashaariic kuwan ka duwan oo ka waaweyn oo ka dambeeyana runtii oo wado ay sheergareeyeen ama ay wadaageen dawladda hoose iyo ganacsataduna markay aragtay dawladda hoose runtii waxqabadkeeda ay go'aansadeen inay iyaguna la wadaagaan waxqabadka runtii waan ku faraxsanahay inay hadda inoo bilaabantay oo ay si fiican inoogu socoto maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo barasaabka gobolka Saaxil Axmed Cusmaan Xasan ayaa iyaguna waxay si qoto dheer uga warameen wadadani laamiga iyo ahmiyadda ay u leedahay ganacsatada iyo isku xidhka magaalada Berbera waxa farxadeena ah inay maanta gabagabo ay ku dhowdahay wadadii aan dhagax dhignay muddo bidii barka hore wadadani 3 qodob bay kaga duwan tahay wadooyinkii aan ka dhisi jirnay magaalada Berbera gudaheeda ka dhisi jirnay waa qodobka koobaad waa wadada qura ee la isugu tagay ganacsato iyo dawladda hoose isugu tagay oo qodobka labaad waxay leedahay 160 mitir oo Irish Bridge biyo mareena loogu talagalay oo lacagta qaaliga ka dhigaya wadada oo inta badan waxyaalahan dib ugu yara joogsanay kamid ah وقضب كسدحات waxay saameyn togan ku leedahay cashuur bixiyaasha ugu waaweyn ee degmadu ay leedahay oo ah ganacsatada waaweyn oo toos saameynayso haday tahay ama Dahabshiil oo dhisay Somgas maxaan ku raadinaa Omar Xaaji Cabdiwahaab waxaan ku raadinaa Selma Ibko waa dadkan cashuurta marka hore baan degmadu ku yeelanay marka waxay mudan yihiin in iyagana mar walba abaalgud looga dhigo inay dhadhamiyaan cashuurtoodii marna ay dadka dayarta ee shacabka ka muuqato marna iyaga ay ka muuqato marka saddex qodob ay ka duwan tahay farxadna way noo tahay halkan waa halkii aynu maxaan ku dhahay bishii hore aynu dhagax dhigeeda sameynay iminkana ay dhammaatood arkaysaan runtii waxaan baan leeyahay horta mahadcelinta koowaad maanta waxaan siinayaa waa ganacsatada ayaan u mahadnaqaynaa 100% way dawladda hoose deegaanada shaqadeeda hore u waday oo mahadnaqeedii iyo waxqabadkeedii hore waynu ogeyn waxay noo soo kordhay inaga cusub ganacsatadii aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynaa waxaan leenahay jazaakumullahu khayr ilaahay idinka abaal mariyo waxaan ku dhaahdaa lacagta aad ku bixiseen halka yaanay noqonin insha Allah tannatii idinku dambeysay haydin noqoto maxaan ku dhaahdaa tubilawa oo aad ka qayb qaadataan horumarka jidadka ee ka socda gobolka inaad meel walba ka qayb qaadataan ayaa u baahan maxaan Cabdirasaaq Qaasim Jaamac wararka telefishinka Sam News magaalada Berbera.